salayn marbaan wada noogilayn hadduna warkaad damqado axwayo dhallayiniyadu kashaadiinuu jilay dareen naxariis wato nabdiga quustiyo saawiga nadaabada weheshada naruura ku soorilay daawadayaal musalkan aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV. واو سيفدا وريق بدن بالا لهيد باليه بال كميدا كادمي حدنا ويغ سو نقدسما فاروق سيدا صديق ناديقيا maxaan ka sameeyay aniga waan ku jeclaada waan ku doorto kaliya adigana maxaad igu samaysay dhulka adigu jidda waan baadishay sabab waliba been iyo propaganda ku gaar ahayd aad igu daldashay waad igu afuftay maxaad tiri waan isla baxsanaynaa maxaan isku baxsan weyn ii sheeg naahada ma la socotaa dirta inaan caas u noqday oo wali hooyada ku safciliyay taas waxay si dheer khaylan hooyada ku qeyliyay taas ma mudnay waa maya adigoo qaladka intaas lagu sameeyay eed soo istaagaysa waliba wax rajiga qabta inaan hadan mar labaad xiriirno sabab maxay ku dhacday sheeg ina sidaan igu sameeyso maxay iga damacsan tahay waan ku xiisay سيفدا اسكب ديب دمر هرتيسو إلهي كل أرت فاروق وانكو حيسة أديك اللي أنت هل دقيقة حتى من ولا أنكره أنت من ولا أنكر تسمع أنا جو وقت ياس اللي أنت من ولا أنكرين بس ما حد يقول سميسي ملحنا دقيقة تكتي أنا كام منين سياس درتد وان كامر ما كم من بهني أنا كبدي ما تهدى أيان كسب بحر سياس درتد أيان كوجو ماذا قلت كيجو وانكرتي فاروق أنت ما الغلط باتمد غلط كاجن وحيا أنا جي تمادو سيفدا adigu waad ka dharagsantahay dad kale inay wanaagsantahay laakiin hadda kadib asxaan ayaan ku sameeynaa markaad ii timaad masquulaad ii dhaqaysaa hadda horteeda ka wareeg biliis waaya faaruq sida jecesha baxadad ilaa waa baxaya dib inaan kuu soo fiiriyana lagama yaabo faaruq waan kaa tagaya aniga laakiin ku xisaabtan qof walba bil'aadana qalad wuu galay aniga qaladkayga haddii aan qirtay oo ka soo laabtay ma sidaan adii galaysaana hal caddaan ayaan haystaa aniga wax walba nolosheeda adiga ayaan kugu qoray aniga hal wax ayaan leeyahay anaa hadda ku tusaarig baasaboorkayga xitaa adiga magacaaga ayaan ku samaystay waayo aniga aabi xitaa mali borseeda muujeeda furaha gurigayga kuma jira aniga waayo guri ma lihi dunidan wax aan ku leeyahay weyraatee ma jiraan kan adiga iska qaada hadduu wax kuu taraayo inaad fikirto lama baahno gaariga fuul dhinacan fariiso dhegeysa maruu faashinka ugu dambeeya waaye
iska fiiri aad ayayna u qurux badan yihiin marwo ma soo raaci kartaa kafayga iska sii cab anigana waan kuu soo laabanayaa hay maxaa dhaca shariif ii sheeg bal beeraag alaabteeda ayaa aruursanaysaa maxaa dhacay safar miyaad u socotaa maya okay boorsadana maxay tahay waan kuu sheegay waxaan idhaahdana waan ka dhaweeyaa gurigana waan iskaga tegayaa maxay adiga shallaayana kaama arko bolojisina dhiibaysana kaama arko sidaas darteed waa inaan iska tagaa iga jooji beeraag ayaan ku dhahay dadkoo dhan waad ka aqli badin kartaa balse aniga igama aqli badin kartid maxaa yeele hooyadaa ayaan ahay oo ku dhashay naa adiga soo ima dhihin hooyo dadkaan annaga sharaf xumo ayay noo keenayaan libis fiican waa inaad u keentaa markii aan libiska u keeno kadibna adiga waad isbeddeshay kadibna aniga ayaad iga soo hor jeesatay waxaadna ogeed adiga ayaas inuusan arrintaan ogolaanayn taasna been miyaa gabadhayda ilaan adiga aniga ayaad bishirqool madaxa ii gelinaysa anigana waanbu ku fahmi waay ka waran hoo adiga waxaad u samaynaysaa waxaan oo dhan inuu ayaas kuu soo dhowaado uu garabkaada ahaada ilaan adiga ayaa u baahan asaga gabar iga dheh waan kuu hambalyeenayaa waxaad rabtaa anaga dhammaantayn inaad farta noogu yeerto adeeg ku anfacaysa waan kaaga tegey shariifa shandadu waa diyaar maxaa kugu dhacayna waxba walwal ayaan ka arkaa sababtu maxay tahay maya madaxa ay xanuunayay waa intaasoo keliya aniga guriga waan ka soo tegey ilaa hooyadaa ay raaligelin ay siinaysan aniga gurigaas kuma noqonayo marka intay xaaladda ka degayso aniga gurigaaga ma joogi karaan xabiibi ii sheeg maxay tahay waxaan lafaha ka buuxayaaqe caaliya adna haddaa qosileed hal iligba kuguma yaal maxaa ku qosileeya aniga ma degaayo gaariga ayaan kugu dhex sugayaa gaariga inaad ii dhex fadhido miyaad ii soo raacday dadkan waad taqaanaa haddii aad aragto waadna fahmi kartaa midda kale naagta aan gurigeeda hadda geli rabo ninkeeda waa uu maqan yahay marka anigana sidan keligay ku gala waa ceeb hadalka aan kuu soo gaabiyo nakeen waa israacaynaa Otko. Nakeen heno. ka waran haddii aana guriga la joogin dhibaato ma laha ma sugayno sababtoo ah wakhti ma haysto waa kasoo tegaynaano waayahay
guriga nooca qadiimka waay laga yaabay gurigan inaan la joogin maxaa yeelay dadka nolol maalmeedkooda ayay raadsanayaan ma fadhinayaan waan kuu sheegay ma joogaan waad saxan tahay daawadayaal musaalkan aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay stuudio asal 24 tv maxaa rabtaanna marwo waxaan ka socnaa shirkadda damiirkan waxaan rabnaa iyo shaar binaar xaaskiisa inaan la kulanno xaaskiisa maad tirina ma adiga haa waanahay maxaa dhaca laakiin maxaase rabtaan marwo caaliya ma adiga maxaa rabtaan macnaheeda maxaa rabtaan waa ii jawaaba dhaqsada marwa aniga waxay ila tahay adiga inaad wax isku qaldayso dhab ahaantii aniga waxaan ahay firuusa ozem ninkanna waa taan damiirkan shirkadda damiirkan maamulaheeda anigana gacanyaradiisa ayaan ahay marwo waxaana rabnay inaan la kulanno marwo caaliya laakiinse may aniga waxba iskuma qalqaldaa ma fahanti adiga waxaan ku weydiinaa gabardaraad ayaa timid soo maaha ninka waxaa noo sheegay guryaha dadka ugu imaanaya oo weliba lacagta siinaaya haysoo sasma warkayga adigana soo mudanaheeda ma tid qoftaani waadna qayaanteen guryana ma eedasiin waxbana ma eedasiin marka maxaad rabtay aniga haddii soo hor istaagaysaa ii sheeg teeda kale hadda waxaad ka hadlayso ma aanan fahmin ifaan siibal oreedha aaw guryaha iyo waxaadna siinayseenna meesha istanbuul ayaa la yidhaahdaa biyo la'aan iyo koronto la'aan labadaba lama noolaan karo idinka qasriaadna siinayseen qasriga intaad keenaysiin gurigeeraana quurlaadeen feerus naga keen hee kaale intay ordasi idinka ilaa haddaan ujeedkiina ma fahmin waxaan rabnay inaan kala ogaano inaad wax u baahan tahay iyo in kale haddana waxaan ogaanay inaadan wax u baahnayn ninkaagana ilaha caafiyo naga keen maayo yaaqi sidan waa ceebdad ayaa ii imaaday dadka bannaanka inay ka noqdaan waa foolxumo hore u soo dhaafay gurigoo gurigiinna kaale qaxwo ayaa idiin samaynayaa diyaar waan ku fahmay go'aan ayaad gaartay soo maaha guriga waad ka soo tagtay waayo hoteel ayaan kuu raadinaya dhibaato ma lahan maya ma doonayo maxaa yeele waxaan rabaa adiga inaan kula joogo xaggaad isaga kay fogeynaysaa adiga anagtaada ahaado hore u soo dhaaf aniga marti ayaa ii tiin idinka gurigiina aad buu u qurux badan yahay ayaas muhiim miyaana ii sheeg waan soo socdaa si qaasaan kula hadla ayaad tiri haddana qof ayaa ii hortaagay aniga qof ii hortaagaana ma hadli karo feruusa hoos iigu sug haye dhaga laabta u dalool inaan ku dhagaystaan diyaaro hay soo hadan adiga waxaad ka mid tahay familka dhibaatada ay soo gaartay sidoo kale arrinta xabsigana waa aan maqlay waa ka xumaa laakiin sidaa darteed waxaan rabay inaan kuu imaado kadibna aan ku arko abaaye abbaaya maxaa la diriska waa soo fiirinaya sugiya
baxa wejigaha gubta quma yahay iimaan soco هذا شغنا ويمانا يا تاسنيا حتى ويمانا صحيح دققنا يا هاي wiilkaygi in xaga qaxwa rabina kusmi moogta laakiin waxa kugu tolaa waa biga dhamaato maaho haasudhimin looma baana mahadsanid warii dhammaantiis aniga waxaan u socdaa garab inaan ku siiyo dhibaato haddii ku haysato ii sheeg anaan kaa caabinayo wiilkaygi adiga waxaad tiri mogtaa guryo ayaa idin siinaynaa balse aniga ma baro meeshaan aan ka tago way waan ku dhashay intaana waan kula soo ekaaday xudunteeda ayaa ku dugan laakiin waxaan ku sheegayaa adiga haddaad ii aaminaysa waa tahay waan ku fahmay adigoo gurigaaga jooga ayaan garab ku siinaya aniga shaqalaan rabaa shaqala isii waan shaqaysana xalaan aqaana aniga shaqo ma idhahday shaqo nooceeya laakiin shaqo waxaan aqaanaa tirtiro ku fiican ahaan kudhaa guryaha hagaajina waa tirtira waa nadaafina hal xabo wasaqa muuga taga teeda kale meesha aan tirtira ma aragtay toddobaadaan kudhaa wasaq ma ku arkaysid aniga macnaha xoogaa nadaafata isku fiicana marka shaqo isiina adigana oo maxaa iigu qoslaysaani shaqaalnimada ceeb ma ii sheeg maya kulama yaabine ee waxaan ka fikiraya keliya qaabka aan shaqada kuu siin lahaa waa intaasoo keliya macno ma leh aniga ayaa ku soo wici doono ama xarunta shaqadii shaqaalaha ayaa ku soo wacay shaqana way ku siinayaan anaa ku sii dhaweynaya abaayo walaasha ii dhegeyso maalin wanaagsan haa maalin wanaagsan mar kalena ku sugaynayaa maalin wanaagsan waa naag la yaab leh habka iskuma qabanaysaba maxaa dhacay maxaad ku wada hadasheen taas wada hadal maba la dhihi kara hooyo maxaa dhacayna ninka yooya maxaa soo adiga lamaba socotid miya aniga maxaan ka ogahay kala beelo masraxna saarna ma kula kaada gabdhayga waaba kana atirishayna isku bedelayna kula tiyaatar furnaa iigu nigsi laakiin hooyo waxyaabahaas dhan aniga waxba kama ogi saca iga tagayaan ku war marabe wax badan ayaa lagu soo wacayaa ka qabano ha ka xanaajin waa qofaan saaxiibanahay ii sheeg yuu yahay saaxiibkaaga su'aalahan waad weydiisaa balse jawaabtooda ma xasuusta aniga meeshaad joogto inuu hubiyo oo keliya ayuu rabaa soo sax maa feruus adigoo keliya ayaan ku danaynayaa saaxiibkaaga yuu yahay noloshaada waa sidee heesaha noocay ka jeceshahay inta aadan seexan ka hor maxaad qabataa adiga noloshayda caadiga waxaan ahayn oo qaasa aniga ma lihi laakiin aniga kulama joogo soo maaha wakhti walba keligii ayaan ahay gurigaaga halkan sooma ahayn haa meelahan ayuu ka dhow yahay balse adiga haddii aadan shirkadda u socnin aniga shaqo ayaan leeyahay waana sii baxayaa dhibaato miyaa jirto dab kuleelkiisa gacmahaaga soo gaaraya weligaa ma ku istaagtay feruusa oo ma ku gubatay middan inaan ku dhaha ayaan rabay adigoo dagaalyahan ah weligaa dhabarka ma lagaa toogtay kuleelka dabka iyo xanuunka middadaba hal mar weligaa ma isla dareentay
dareenkayga hadda maxaan ku sameeyaa ma khirtaa mise waan ku xanaaqaa meel ayaan ku soo tusi rabaa codka gaariga baakin anaa wadanaya hooyo halkan maxaad ka soo doontay maxaad u la yaabaysaa gabadhayda aniga qaraabadeeda ayaan u imaaday taasna ceeb maahan maxaa kugu dhacay hooyo maruu ijraa halkan waxay umaada iyada inay raaligelis wax kale ma jiro igaarkay waa ila hadlaysa leh aniguba waxaan rabaa waxa kuwad hadlaysay inaan maqlo ahaa waa runteed aniga raaligelin ayaan halkan u imaaday haddii aad u baahan tahayna mar labaad ayaan hortaada ku raaligelaynayaa astaaqfirra ilaahay aanoo dambi dhaafo aniga qaladka aan galay waan qirta hadda aanba iska soo daahee ugu dambeyn waxaan rabaa inaan heshiino arrintaanna meeshan aan ku soo afjarnay ilaan arooska looma baahna colaad iyo waxaas iyo cuqdad inay jiraan intaba haye wiilkaygaa tahay soo ma ahanna hadda kadib run ahaantii marwo safiya qalad ayaan kaa galay okay raalli noqo hadda soo okay ma ahanna waad aqbashano qof aan jeclaa ayaa horteeda ku dhacay weliba anigoo arkaya waana ka celin waayo sida calayntii oo kale ayuu u dhacay dhagax oo kalena dhulka ayuu ugu dhacay anigana run ahaantii waan badbaadin waaye weliba habeen walbana riyo ayaan ku arkaa sida qof aniga tuuray oo kale shan sano run ahaantii waxyaabahan inaan kuu sheego ma rabin laakiin way dhacday soo maaha indhahaaga si fiican haddii loo fiiriyo waxyaabo badan ayaa laga fahmayaa anigana waxaa aad ii waalaya qof wejigiisa maaskara ku xidhan yahay waana danaynayaa laga yaabo qofkaas gudahayga inaad ka arki kartid hay ma aragtaa fiiri badan adigana maaskara ayaa ku qarsoon balse maalintay noqoto maaskar ahaan waa iska bixin doontaa mala socotaa aniga inaan ogahay qayb walba oo noloshaada ku saabsan maskaxdeeda ayayna ku jirtaa waad oonaysaa hal sheeko ma kaaga sheekeeyaa oo weliba sida xagaagii oo kale u qabooban wiil ayaa jiray wuxuu noo baxay geed inuu caleemo ka soo jaro wiilkii yaraa meeshuu ku awaarsanayay ayaa shimbir yar ka hor timid wiilkiina dabaalnimadiisa waa uu ooyey hooyadiisaa u timid waxay tiri maxaad la ooynaysaa adiga waxa uuna dhahay ha fiirin ilinta indhahayga ka socdo ee waxaan fiiridaa gacmihii dhiig ka daadanaya
हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों